sanadkan waxaan tijaabin doonaa oon imtixaanaynaa qofba qof si imtixaanaya anagu iimaanka Sheekh Mukhtaar baan ayaan sanadkan aan imtixaanayna maanta waxaan idinku imidna waa idinka guddiga meeshaas waxa ku qoran si ilaahay dartiisa oo saad u dhaarateen fulinteeda dadka Soomaaliyeed inay ugu cadaalad sameeyaan insha Allah oo cadaalad cad ilaahayna markhaati buu ka yahay wax kale kama rabno waxba uma soo dhiibanayno wax aan ka doonayna malaha waxaan rabnaa dadkaas Soomaaliyeed ee ganacsatada ah in cadaalad loo sameeyo waxay cadaaladiinu ka soo bixi doontaa saad wax u saxdaan haddii hal darajo qofna siiyo masalan 30 midna uu 2 siiyo waxay ku tusinaysaa meesha inayna waxba inay midkood baa qaldan labadaas waa la isku dhawaadaa because haddaad la kulligan daacadnahay waxa shuruudaha soo buuxiyo waan garanayna anu macallin mara waa aqaanaa sixitaanka dawlad haddaan nahayna dawladdu waxay baahay dadka inay soo xajisiiso oo ay ka bixiso oo ay u fududayso laakiin hadiiba tii la waayay inagii dawladda haddaan annagiina isbaaro dhigano iska dhaaf inta wax kale oo aan keeni warqad saxiixaba ka sii goosto oo kii kala inta sii dhigto oo isbaaro sii dhigto oo kii dawladda u shaqeynayo isbaaro dhigto oo kii shirkadda lahaa ee qaadayay tigidhka goynaya isbaaro sii dhigto oo kii sameynayay maxaan ku dhahaa xamlo lahaa meel uu kala 100 isbaaro sii dhigto oo kii guryaha ijaaraya uu isbaaro kala sii dhigto oo kii meel kasta oo kii maxaan ku dhahaa baaritaanka sameynayo oo kii baasaboorka sameynayay oo kii kulli 22 isbaaro oo qofkii ever lagaga dhigayo bal maamada ama odaygaas aabaha ah oo neefafkii arigaha soo gatay dhowrkii halaad soo iibsaday beertiisii soo gatay ganacsigii yaraha soo dhameeyay soo gaday gurigiisii soo gaday waxaas ma qabataa ilaahay ku dhaashay dadka Soomaaliyeed yani inna allaha la yadhlimu an-nasa shay'an walakin an-nasa anfusahum yadhlimun ilaahay ma dhihin dhibka inagu dhacaya waxyaabaha aan kasbanay ee ku dambaabnay xajka kamida dadka Soomaaliyeed ee la yani ilaahay u sii socda ee isbaarada loo dhiganaya qayb weyn kamida dhibaatada aadka u weyn ee soo gaartay kamida dad la gadanayo sidii adoomadii 200 aniga isii ana 200 baan leh ana 300 baan leh ana 400 baan leh hebel 500 buu leh labana kan baan leh konton baan leh oo la dul dhigayo oo deedna percentage ka sii qaado ana ku soo kaxaynaya hebelow 200 baan soo qaadaya deedna waan ku sii kaxay waan ku sii gudbaya percentage isar ana hebel isar ana hebel isar ceeb baa ka socota waxa oo arintaas runtii dad marka in la yiraahdo waxa dhacday dawladaha dariska ah qofku inuu ku xajiyo 1600 annana imsa ugu dambeysay oo lagu xajinay 5500 ilaa 6000 in la gaaro qof Soomaaliga ayuu gaaray marka waa isbaaro loo dhiganaya marka in qofkii ilaahay uu soo caabudo xajkii guto ayaa isbaaro loo dhiganaya marka waa sad an sabiilillah caadi ah oo dadka laga celinayay inay soo cibaadaystaan oo ilaahay caabudaan ayaa loo diiday meel badan kuwana masaajidka bay noo diideen inaan ku tukano dadkii waxay dhaheen waa la leynaya kuwana kanayba isbaaro dhigteen ba xajkii bay dadka u diideen oo inay ilaahay soo caabudaan ay iyaguna u daad marka ummad dhinac kasta laga ciqaabay ayay noqotay ummadda Soomaaliyeed waxa inta ka sii daran waxa la rabaa xajka in la siyaasadeeyo xajku siyaasad ma galo cibaadadu siyaasad ma gasho rukn min arkaan al-islam siyaasad ma gali karo meel la siyaasadeyn karo ma rukn min arkaan al-islam oo salaadii shahaadateynki iyo salaadii iyo soonkii iyo zakadii iyo xajka siyaasad ma gali karaa lama siyaasadeyn karo lama kooxayn karo lama guruubayn karo ma noqonayo hebel iyo waxaas ma aha
waxaa la rabaa xajka dadka muslimiinta ah in loo fududeeyo, waxaa la rabaa in ilaahay loogu dhowaado, waxaa la rabaa in lagu cibaadaysto janno lagu galo oo deedna dadka loo khidmayaa la rabaa. markaynu u tagno dadka xajka jooga ee muslimiinta ah cuntayna la daba cararaan ajri ayagoo ka raba, annana shilin kala hadh iyo cadaab iyo inta ka dhufso ayaan annagana la daba soconaa dadka. marka waxaa loo baahan yahay in aan isbedelaa loo baahan yahay. ma banaana in la tasyiisiyo oo siyaasad la geliyo xajka, mana geli karo. mujtamaceennu soomaaliyeed waa mujtamac muslima sunni ah shaaficiya almadhaba. wasaaradda waxaan rabnaa inay saas ku hogaamiso bulshada, bulsho muslima sunniya shaaficiya almadhaba. maxaa u leenahay khilaaf ma rabo, ninba inuu meel intuu in kala soo aruuro deedna uu marka dambe meeshuu rabo inuu la aado, gurigiisa wuxuu rabaa ku sameeyo. laakiin babliga iyo bulshada dadkana waa shawaafic, ha loogu fatwoodo shaaficiga, fiqiga shaaficiga ha lagu socdo, dadku waxa ku akhristaano, ha ku dhaqmaano, xajka ha ku gutaano, ha ku socdaan. yaan confusion lagu ridan oo aan la wareerin, dadka aan la wareerin. sidaa darteed innaga xajka waxaa u qaabilsan inay nidaamiso, hogaamiso, monitor garayso, ilaaliso, ka shaqayso wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta. cid kale oo ka shaqayn karta oo u idman ama shacab ha ahaado ama dowlad ha ahaadee ma jirto. waxaan rabnaa si isxisaabtanka iyo ilaalinta hufnaanta iyo nasaahada si loo ilaaliyo, waxaan rabnaa mas-uuliyadda in lasoo koobo. yaa guddi noqonaya oo annaga noo ah sheekh mukhtaar, yaa xajka geynaya dadka sheekh mukhtaar, wasiirka haddii uusan sheekh mukhtaar joogina wasiirka kale, wasaaradda annaga noo ah wax kasta, wasiirkaan la xisaabtamayna. qofka hadduu wax xumaado mas-uuliyadda qaadaya u qoolan waa wasiirka wasaaradda. 100% mas-uuliyadda isagaa qaadaya, isagaan ku ognahay. annagu business kama rabno oo xoolo kama rabno oo recommendation kama rabno oo wax kastoo nala soo dul saaray waa diidnay oo ma ogolin. madaxweynahana waa soo dhaariyey, sheekh mukhtaar waa ogi, anna sidoo kale. waxaan rabnaa marka cadaalad in la sameeyaan rabnaa oo dadka loo cadaalad sameeyo. wasaaradda waxaan ka rabnaa mas-uuliyadda inay qaadato. sanadkan waxaan tijaabin doonaa oon imtixaanaynaa, qofba qofku sii imtixaanaya. anagu iimaanka sheekh mukhtaar baan ayaan sanadkan aan imtixaanayna. marka asaguna guddiga ha sii imtixaano, qofba qof ha sii imtixaano. idinka hadda meesha u fadhida imtixaan aad ku jirtaan. marka waa hawl xaj sidaa uu uga muuqdo shaashadda xajkaas magacaas uga muuqdo ayaa dadka Soomaaliyeed asalku muxuu yahay waa saan sheegay in ay meeshan ka soo baxdo khidmad wanaagsan iyo sicir macquul. khidmad wanaagsan iyo sicir macquul inay ka soo baxdaa meeshan intaan rabno waa intaas. oo dadka Soomaaliyeed u soo baxaan inay adeeg fiican sida bini aadamka Ilaahay ay u helaan inay u helaan, oo ay dad muxtaramiina oo la ixtiraamay oo xaj tagay oo bartay waxyaabaha la sameeynay. waxaa ka mid ah dadka xajka tagay, dadka xajka waa in la baraa, xaq bay u leeyihiin. qofka kaxaynaya waa inuu baraa xajka, waa inuu miiqaadka tusaa, waa inuu acmaasha xajka baraa, waa inuu arkaanta baraa, waa inuu waajibaadka baraa. qofku hadduusan arkaan alxaj garanayn, waajibaat alxaj u garanayn, waxaa waaye uu iska tago meesha iska tago asagoo isku ordayo uu meesha tago. hadda waxaa laga yaabaa intuu waxaasoo dhan galo oo xoolahaasoo dhan sii qaado oo dhibkaasoo dhan maro oo safarkaasoo dhan maro, haddana xajkiisii inuusan ansax noqon. su marka qofka xajka ugu ansaxo
وإن أركان حجك لبراء شروطي لبراء وواجباتك لبراء ولا إلى هذا السيدنا أدو حجني ساقف حق بكله قفك قاضي يا وين ويقان كل امتحانه كون وكحيني وين لو هذا وزارة مركز حق وحنكرمنا تاسا كرمنا سي جود wasaaradda waxay ka mid tahay wasaaradaha ugu muhiimsan ama wax aan dhihi karaa waa wasaaradda ugu muhiimsan dalka wasaaradaha kale oo dhani qayb yaroo nolosha ka mida ayay maareeyaan laakiin tani waxay maareynaysaa waxayba ummadani leedahay wixii ugu muhiimsanaa oo ilaahayba wuxuu bani aadam siiyo wixii ugu muhiimsanaa oo islaamka iyo diinta ayay maareysaa oo hadda waxaan ka hadlaynaa rukni min arkaan islaam ayaan ka hadlaynaa marka wasaaraddan dadka Soomaaliyeed oo dhan diintooda oo diinta islaamka ah ayay ricaayaysaa ay u xil saaran tahay waxaan ka rabnaa marka wasaaradda inay matasho dadka Soomaaliyeed inay matasho dhammaantood madaahibta hal madhab weeyaan sheegnay laakiin waxay leeyihiin jamaacad waxay leeyihiin duruq kala duwan bay leeyihiin waxaan rabnaa kulligood inay matasho dhammaantood inay matasho la rabaa dhammaantood in ay waxaa la rabaa ay wasaaraddu matasho dhammaantooda wasaarad u tahay dhammaantood ay soo dhaweynaysaa dhammaantood ay la shaqaynaysaa waxaa la rabaa in ay wasaaraddu ay noqoto dallad isku haysa dhammaan turuqda iyo jamaacaadka iyo kooxaha arrimaha islaamiga oo Soomaaliya wada oo dhan inay isku haysaa la rabaa marka laga reebo kuwa munxarifiinta ah kuwa hadda lala dagaalamayo oo ayagu kuwaas ma tirsan waa cadow waa islaam kuwaas kuma jiraan meeshaas kuma jiraan waa khawaarijta warkeedu iska cadiyeen laakiin hadday tahay kuwa saxwal islaamiya iyo hadday tahay kuwa turuq suufiya oo labadaas lagu soo koobi karo waxaan rabnaa in ay wasaaraddu noqoto dalladii ay wada hoos harsanayeen ee isku waday ee u cadaalad samaynaysay ee ayadu ka wada tirsanayd marka Sheekh Muxtaar qolo gaara ma noqonayo turuq suufiyu ka tirsan yahay saxwal islaamiyu ka tirsan yahay qofku marba hadduu halkan ka fadhiyo kursigaas la intaba ah marka waxaan rabnaa in sidaas loo fahmo oo aan maxaan ku dhahaa aan la faham xumayn wasaaradda iyo wixii loogu talagalay iyo shaqada ay ummadda Soomaaliyeed u hayso arrimaha xajkana waa saan sheegay wasaaradana looga dambeynaa ayadana inoo hagayso kulligeen ayadana uga dambeyn doonaa waxaan rajaynayaa dadka ganacsatada Soomaaliyeed inay ku qanci doonaan cadaaladda guddigan iyo wasaaraddu ay wadaan haddii Ilaahay yiraahdo waxaan rajaynaynaa ugu dambaysta saan sheegay inay dadkeenna ay u soo baxdo khidmad wanaagsan iyo sicir macquul khidmad wanaagsan oo aad u wanaagsan iyo sicir macquul ah oo ay tahay in ay ku qancaan marka laga reebo laga kurma tiro isbaarooyinkii oo dhan in laga qaado oo deedna ay noqdaan waxay bixiyaan wax la yaqaan oo takaaliif ay ayagu raalli ku yihiin oo ay garanayaan in wax lagu qabanayo inay noqoto midda la rabo waa midda taasaan rajaynaynaa waxaan rajaynayaa ilaahay idankiis inaan guulaysano oo xajkana ilaahay subxaanahu watacaala ina wada waafajiyo allana inaga aqbalo idinkana allah idin waafajiyo cadaaladdaas ciddii soo sheegata waa sida la sheegay link baa u furan oo complain ay ku soo samayn karaan kadibna insha Allah waxaan rajaynaynaa inaad u saxdaan haddii aad wax qaldameen in dib siduu Sheekh Muxtaar sheegay in dib loo saxo oo deedna ciddaas wax ka xumaadeen waa fal bani aadam mistake baa iska dhici doona wuuna iska dhacaa mar walba haddeertay dhacaysa in kuwaan samaynayna hore mar walba way dhacaysaa marka in la sameeyo dib loo saxo wixii macquulad u aragtaan inuu complain saxa oo habkii saxda ku yimid in dib loo fiiriyaan rajaynaynaa Allah idin fududeeyo shaqada waadna ku mahadsantihiin khayran waa idin rajaynaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh